Assalaamu calaykum. Mowduuc maanta waxaa kaga hadli doonaa qaabka loo beddelayo domain name serverka internetkaaga. Marka horeysa waxaad qoraysaa IP addresska internetkaaga. Kadib waxaad gelinaysaa passwordkaaga. Kadib waxaad dooranaysaa home network. Kadib waxaad sii dooranaysaa LAN interface. Kadib waxaad dooranaynaa optionka DHCP server. Hadda waxaad u jeedaa IP addresska internetkaaga. Kadib si aad u beddesho domain name serverka internetkaaga waxaad dooranaysaa manually. Kadib waxaad ka beddelaysaa midka defaultiga oo ah 192.168.1.1. Hadda si aan u qaadano domain name server waxaan tijaabinaynaa 3 domain name server. Kadib waxaan qaadanaynaa midka ugu speedka sareeya. Hadda waxaan tijaabinaynaa midka by defaultiga ah. Si aan u tijaabino waxaan furinaynaa tab cusub kadibna waxaan qoraynaa speedtest.net. Waxaan dhahaynaa go. Hadda waxaan u jeednaa midka defaultiga speedkiisa inuu yahay 0.79. Markale waxaan tijaabinaynaa midka labaad Google domain name serverka oo ah 8.8.8.8.8.4.4. kadib waxaan dhahaynaa save. Refresh aan dhahaynaa. Kadib waxaan dhahaynaa go. Hadda waxaan u jeednaa inuu ka sareeyo kan midkii hore oo ahaa 0.79. Markale waxaan tijaabinaynaa midka saddexaad kadib waxaan qaadan doonaa midka ugu speedka sareeya. Midka saddexaad waa 1.1.1.1.0.0.1. kadib waxaan dhahaynaa asna save. Markale waxaan dhahaynaa refresh kadibna go. Had markale waxaa dhamaaday tijaabadii saddexaad. Binkigiisa waxa waaye 58, speedkiisna 3.27, uploadkiisna 0.18. dhammaan wuxuu ka sareeyaa labadii hore. Kadib waxaan qaadan doonaa midkan. Adna waxaad tijaabinaysaa saddexda habo kadib waxaad qaadanaysaa mid kugu sareeya. Sidoo kale waxaa jiro qaab kale aad ku beddelin karto domain name serverkaaga. Marka horeysa waxaad right click dhehaysaa internetkaaga kadib waxaad dooranaysaa open network and internet setting. Kadib waxaad dooranaysaa wifi, change adapter option. Right click waxaad dhehaysaa wifi kadibna properties. Kadib waxaad dooranaysaa internet protocol version 4 kadibna properties. waxaad dooranaysaa optionka hoose ah use the following IP address. kadib waxaad qoraysaa IP addresska internetka 192.168.2 ama 192.168.1.0. markaad soo buuxisid qaybahan kore qaybta hoosena DNS serverkaaga sida midka hadda aan soo aragnay 1.1.1.1.1.0.0.1. laakiin waxaa kuu fiican midkii hore sababtoo ah kan wuxuu beddeli doonaa keliya device-ka adiga aad isticmaashid ha ahaado laptopkaaga ama mobilkaaga. laakiin midkii hore wuxuu beddeli doonaa dhammaan speedka routerkaaga. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaag asxaabta. ha ka ilaawin muuqaalka inaad like saarto sidoo kale kanaalkan aad subscribe garayso.